telefishinka dalsan waxaan ku wada sugannahay degmada Daarusalaam halkan dad aad u fara badan oo rag iyo dumar ah ayaa salaada Ciidul Adha ku tukaday bal dareen ahaan maxay kaaga dhigan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sallam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inta joogtay inta ay daawanaysa iyo telefishinkan hadda ay daawan iga warsanayo dalsan kulligiin waa salaamantihiin ciid mubaarak haddaan ka warramo jawiga maanta aad iyo aad ayuu u fiicnaa ummadii oo dhan baa isku soo baxday Daarusalaam kaliya ma xitaa xamar weyn laga yimid marka intii ka shaqeysay iyo intii hawsha waday iyo inta duubaysaba inta kulligoodba Allah ay baarku baan dhilaha waan gartay caruurda yar iyo waalidiin iyo ehel iyo dad qurbaa ka yimid buu yimaadeen Daarusalaamna sanadkan waxay nasiib u yeelatay inay degmo noqoto maadaama hore deegaan ay ahayd salaadiina waa lagu oogay bal ka waran meel horumarkeeda iyo nabadeeda iyo bulshadeeda ما شاء الله أنا وهذا حمر بان كوري يران تيدي إلا جامعة وجا بحي دكسي هوسنا كبلابي Daarusalaam هذا اللي بدي سنة قدامي عندنا هاي دتك قربان هاي وحنسليه كرامش كل يوم عيش كتبه واهل كامبا هذا اللي كوروي هاي كوا سمية كوا كش ميدي هذا كله سنة كي هران ميدي سنة كان عيدان كوريسيبا يمتى أنا كنت كذي آد بأكل دويهين وعايز لا يساعدك واسوا بدنيا جوي واسيب لارنيا لامية الله فدينا يوم قريها سوا بدنيا marka hadaan u hadlo diasporana waxaan leeyahay anigaaba oday oo ka yimid dibadda oray ku soo dhawaada halkaaysiin ka buuxsamin dadka gudaha joogana waxaan leeyahay xamar hadaan hawo rabtaan halkaan imaada assalaamu calaykum waan gartay in ganacsatada Soomaaliyeed ay hirgeliyaan dhismayaal aad u qurux badan dadku ay soo degaan caruurtii iyo waxbarashadooda iyo caafimaadka dadka waxa la tilmaamaa in goobaha nasiinada ay u baahan yihiin bal ka waran in ganacsatada Soomaaliyeed ay hirgeliyeen in dhismayaal qurux badan Daarusalaam hadii ay noqoleed guriga la dago guriga la iibinayo goobo waxbarasho sidoo kale goobo dalxiisa in degmada ay ku soo korodhay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ganacsatada lacagtoodii iyo hantidoodii mataqaana u horay wadankooda inay ku horumariyaan waxa weeye markaad fiiriso beeraha dalxiiska oo meeshan ku yaala laamiyada la dhisayo iyo guryaha waxa weeye waa wax ugu horeeyo na dhiiri gelinaya amniga sidoo kale waxbarashada sidoo kale kan dibadda qaatay oo xoolihiisa geeyo qurbo baad joogtaa kan dibadda inta ka yimid qurbada geeyo qurbaad ka tagtay qurbaad tagtay marka waxaan dhihi lahaa meeshii lagu nasan lahaa weeye ragga lacagtooda u horay oo arintan hirgeliyana waxaan dhihi lahaa guuleysta xoolihiina Allah barakeeyo wassalaamu calaykum ugu dambeyn qurbo joogta aad matalayso 2 sano Daarusalaam way kugu dhigtay waa sii joogaysaa bal aabayaasha adigoo kale ama awooyaasha ah ee caruurtooda dibadaha ku hayo oo xitaa ugu yaraan xilliyada fasaxa ay mudan tahay in wadankii la keeno dalkii la baro caasimadii la baro maxad fariin u dir lahayd waxa weeye waa isgaranaynaa inta banaanka iga daawarayso Yurub Scandinavia khaasatan meelaha aan ka imid waa sanadkii labaad weeye inaan sii jeclaado ma ahane maalin walba caana fresh oo geela la ilisa waxa idin isleeyahay rag aan soo raacnay baa jiro markaan inta soo aadayay dhahayay meeshaan kugu fiirinayna waxaan leeyahay booskiisa in ka buuxsamin imaada insha Allah taala meeshaan inaad hadda waxaan ka faa'iiday caruurtaydii dibadda joogtay baa xitaa oo wadanka aqoon ba hadda isoo booqanaysa oo intaas waxa uu noqday ambassador meesha u jooga marka waalidiintu halka hadii yimaadaan xitaa caruurtu waa ku soo dhiiranaya laakiin aabihii haduu meelaha wareego yaa wadanka imaanaya way marka anu waa ku liibaanay ma sha Allah waan garanaysan maxamed xaaji weeye ma sha Allah maxamed xaaji waxa iga warantaa wadankee ka timid anigu Norway baan ka imid soddonkii sano burburka halkaas joogay waa gartay maanta marka waxaad moodaysaa in culays badan iga digay oo awal isaarnaan jiray maanta markii halka ku tukanahayay nin ilo joogay waxaan ku yiri alxamdulillah baan iri wax ifiirinaya ama ilxun igu fiirinaya male qof kasta iga soo baxo waa islaamaya marka inta kaliya ba igu filanba xamar iyo caasimadda Daarusalaam ba waxa ka helaysaa raashin fresh cunto fresh ilibkiyo fresh caana geeliyo fresh bal dadka reer Norway fresh horta warkiis ma jiraan umaleynaya furniture baa lagu jiraa waa isgaranaynaa waana yaqaanaan sheekada waxaan ku soo gabagabeynayaa war imaada waxa weeye arka ayaa wax gartee anigii aad garanaysaan oo maxamed xaaji faarax dabacsan oo meeshii baan joogaa soo dhawaada aan leeyahay lagama sheekeyn karo waxa beesha aan ku haysano ma ilaahay bahadi ka badbadis maaha waa wax run ah weeye 2 sano ii maraysa waxaan ay qorshaysan inaan cimrigayga halkan ku sugo insha Allah taala bila stress way insha Allah taala salaamu calaykum kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet